munaasibadan iyada ah oo ahayd mid seer sare loo soo agaasimay isla markaasina xadhiga lagaga jirayay dhismaha cusub ee loo dhisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Somaliland ayaa lagu qabtay subaxnimadii hore ee saaka barxadda hore ee wasaaraddaasi waxaana munaasabada xadhig jarkaasi kala soo qayb galay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada saraakiisha ciidamada qaranka Somaliland mas'uuliyiin marti sharaf cuqaal shaqaalaha wasaaraddaasi iyo waliba dadweyne kale oo tiro badan Ali Maxamed Waran Cadde wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa tafaasiil ka bixinaya marxaladii kala duwan ee uu soo maray dhismahan loo baneeyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Somaliland sidoo kale waxa wasiirku u mahadnaqay hay'adda USAID oo sheegay inay gacan weyn ka geysatay dhismahan iyaga ah horumarka dalkan u gaadhay ama hawlaha u qabsoomay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland inay ku timid dhiirigelinta madaxweynaha ee habeen iyo maalinba uu nala garab taagan yahay ina ilaahay nagu guuleeyay inaanu sideeda uga soo baxno mudane madaxweyne wax badan baa u qabsoomay wasaaradda waan jeclaan inaad uga sheekay laakiin waqtiga oo gaaban awgeed waa soo gaabinayaa ka waramayno quruxda qarankan iyo horumarkiisa ilaahay baa mahad leh waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo runtii horumarka dalkan u gaadhay ama hawlaha u qabsoomay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland inay ku timid dhiirigelinta madaxweynaha ee habeen iyo maalinba uu nala garab taagan yahay ina ilaahay nagu guuleeyay inaanu sideeda uga soo baxno mudane madaxweyne wax badan baa u qabsoomay wasaaradda waan jeclaan inaad uga sheekay laakiin waqtiga oo gaaban awgeed waa soo gaabinayaa waxa halkan aan runtii jeclay inaan uga mahad celiyo hay'adda USAID oo aan leeyahay thank you very much hawsha aad noo qabatay iyo wasaaraddan quruxda badan ee la dhisay haddaan yar kaftamo USAID waxay dhisay daartan quruxda badan laakiin daarta intan laga ka horeysa innaga ayaa dhisnay intii ay munaasabadani socotay waxa halkaasi lagu soo bandhigay heeso iyo riwaayado kala gedisan gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo isagoo ka sheekeeyay habkii hanaanka ugu wacan ay xukuumaddiisu u mari doonto dhismaha qaranka dhammaan madaxda wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaqaalaha oo ugu horeeya wasiirka mudane Ali Maxamed Waran Cadde waxaan u mahadcelinayaa u muqaddaqaya hay'adda USAID ee dhismaha maalgelisay iyo hay'adda TIS ee fulisay ugu dambeyn waxaan u hambalyeeyaa ciidamada booliiska ilaalinta xeebaha iyo kuwa laanta socdaalka oo sida hagar la'aanta shacbiga ugu adeega waxaan leeyahay dagaalka halkaa ka sii wada ummadeedana si wanaagsan ugu adeega xukuumadda waxa ka go'aana inaanu dalka dhisno amnigiisana ilaalino allahan baa mahad leh Somaliland baa guul leh isku soo wada duuduuba dhismahan isaga ah maanta xadhiga laga jaray ayaa ah mid hal sano iyo dheeraad ay ku shaqeynaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Somaliland Qadarka Space Channel Hargeysa